waa maalin taariikhaysan farxad iyo kalgacal ayaa u kulansan dadka halkan ku sugan culimadu waxay isku marxabeynayaan si xushmad lagu dheehay qof walbana waxa uu halkan ku joogaa dareen farxadeed oo uu wajigiisu muujinayo من حز حصنا صفات الدران وزاد في سائر المعاني الله صلاة ربي مدى الزمان على النبي طائر الجنان ملح برغ وسحر عدو ودم ذكرك باللسان الله وفقد بيانك إلى عيني وقسه الله بالمثاني وعمكه الله الآن بجودا ونال ما لم ينله ثاني الله صلاة ربي مدى الزمان على النبي طائر الجنان ملح برغ وسحر عدو ودم ذكرك باللسان الله أثنى عليه لله مدحا فما ثنائي وما بياني فمنه في الكتاب يطلع فأعجز لعد بالبنان الله صلاة ربي مدى الزمان على النبي طاهر الجنان مرحبا ربو goobtu waa masjidu tawfiiq munaasabaduna waa mid sanadla ah oo aan kaliya ahayn dhacdo iska timid laakiin muddo badan la soo qorsheeyay ugu dambeynna alla mahadii u dhacday sidii ay u qorsheeyeen qabanqaabiyaashu waxa ay munaasabadu gunaanad u tahay munaasabadaha jamaacatu Sheikh Daawud Culusow ee bisha Mawlid kuwaasi oo 29kii maalin ee la soo dhaafay si aan kala joogsi lahayn uga socday masaajida mawlacyada iyo dhammaan xarumaha diimeed oo hoostaga jamaacada munaasabadan waxaa goob joog ka ah oo madasha fadhiya culimo xer maadixiin odayaal jilib culus ah iyo marti sharaf kale oo kulansaday qiimo iyo qadarin gaar ah aayada kamida qowlka eebe oo munaasabada lagu furfuray ayaa ugu horeyn ka soo qaybgalayaashu waxay u dhageysteen si aamusnaan iyo khushuuc leh a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما waxaa xigay madaxiga nabiga calayhi salaatu wasalaam oo sawdka lagu qaadayo uu yahay mid degan oo ku gaarsiinayo heer aad isxakamay weyso هلا في البروق عن الأحباب تعليل لا ولد ما له في الحكم تعليل في الحكم تعليل يا رب صل على خير الورى وعلى أصحابه الكرماء والآل كلهم والآل كلهم الله قد أصبح القلب مضويا على حرق وللمدامع ضالوا وتسيلوا يا رب صل على خير الورى
سلام رسول الله عليك سلام حبيب الله عليك سلام سلام محبوب الله عليك سلام عليك سلام عليك سلام سلام رسول الله عليك سلام الله مصطفى معنا من دوي مقيس قروح ظلم متكيل العجب يا محمد أمين أمين رسول الله عليك سلام عليك سلام عليك سلام سلام رسول الله عليك سلام الله مجر مركي وجرده قد كمولا قلي متكي وعذابها مولا وقرقارو محمد أمين أمين رسول الله عليك سلام عليك سلام عليك سلام سلام رسول الله عليك سلام رسول الله عليك سلام حبيب الله عليك سلام سلام النبي الله وفي رباكم حبيب قلبي جميل ذاتي جليل شاني من حز حصنا صفات الضران وزاد في سائر المعاني صلاة ربي مدى الزمان على النبي طائر الجنان ملح برغون وسحر عدو ودم ذكرك باللسان الله وفقد بيان كحيل عيني وقسه الله بالمثاني وعمكه الله الآن بجودا ونال ما لم ينله ثاني على صلاة ربي مدى الزمان على النبي طاهر الجنان ملح برغون وسحر عدو ودم ذكرك باللسان. intaasi waxaa xigay kalimaad ay jeediyeen culimadii munaasabada goobjooga ka ahaa waana kuwaan Sheikh Maxamuud Difli, Sheikh Cabdi Saciid, Sheikh Cali Cibaar, Dr. Sheikh Maxamuud Mukhtaar, Sheikh Cabdiraxmaan Timoweyne, Sheikh Shariif Maxamed Cumar iyo culimaa udiin kale. nabiga laga sheekeeyo sifadiisa la sheego magaciisa la sheego xaadiriinta waxa looga baahan yahay Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bari wadan ee daldalaan qisada la iska mandhageysto waxa la rabaa nabiga hadii la sheego magaciisa salligu waajib waay ma fahamta kullama la sheego yajibu hadii sifadiisa la sheego ama magaciisa la sheego Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daldalaysi ogaada hadii kale majlis wuxuu ka naqaa majlis ugu dambaabay ma fahamta dambina loo ma aqdine تعظيم النبي له عقدي أصلا ندي شيء قال بريودة اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم دلدليس كل ما أد مغشين مقع النبي اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أما صلى الله على محمد دار زوج شر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنك أوي أجايين لبض النعمة أوجوا وين أي هلان إن وكوها بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لبنا أي كأهد الهداية للدين وحال قوريا أو صار مسلم عنده نسائي أو صار مسلم بمعناه وكسر صار حديث لقوريا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وحوليه هي نبي가 wuxuu ku soo baxay xalqa iyo dad saxaabada meel ku kulmay iskugu yimid markaasuu nabigu ku yiri ma ajlasakum maxaa halkan idin fariisiyay maxaad iskugu timideen maxaad meesha ku qabanaysaan labada nicmo oo ilaahay kitaabkiisa ku sheegeen waxay dhaheen jalasna nadkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lidiinihi wa manna alayna bika waxaan iskugu nimid in ilaahay uga mahad celino in ilaahay diintiisa nagu hanuuniyay iyo in ilaahay adiga nabiyullaahi muhammad nagu ka galladaystay labada arin ayaa ijtimaacayno habay saasay nabiga ku dhaheen salawaatullaahi wa salaamu alayhi
xadiidka aakhirkiisa nabigu sida uu amaano dadkaas wuxuu nabigu ku tilmaamay oo yiri ogaada malaa'ikta ilaahi baa malaa'iktiisa idinkugu faanaya jalsadaynan aan iskugu nimid waxa weeyaan laba shay ka mahad celinteeda ilaahay waa mahad celinayno waa labada nicmo waaweyn ilaahay nagu manadaystay hadiina la yiraahdo maxaa iskugu timideen saxaabatu rasuulillaah sidii tiriyo kalan leena jalasna nahmadullaha wa nadhkuruhu ala ma hadana lid-din wa manna alayna bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa nafsul qadiyya wa nafsul ijtimaa' nabigu ku soo baxay sallallahu alayhi wa sallam mawlid markii la soo ururiyo inta saxaabadu sameysay waa in ilaahay loo mahad celiyo marka falillahi alhamdu 1400 oo sano kadib in ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu hanuuniyay inaan nabiyullaahi Muhammad rumayno marka uu naga dhiga matana ummadiisa kadib ummatul ijaaba ilaahay baan uga mahad celinayna ikhwati fillah waxa nabi Muhammad daatadiisa ilaahay ummadda ugu galladaystay markii la akhriyo nusuusta quraanka iyo sunanta saxiixaadka ah ee daatada nabiga ka hadashay baa waxa la ogaanayaa ilaahay inuu nagu galladaysto wax jira inay tahay waa nicmada ugu weyn oo haysana inay tahay nabigeena inuu yahay sallallahu alayhi wasallam nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu aad ugu murgaayay ummadiisa sabaha nahara layla masaa wuxuu ka murgayaa ummadiisa inay badbaadaan ummadiisa naar inay ka badbaado ayuu ka murgaayaa sallallahu alayhi wasallam illa murugtiisa tirabatnaashaheedii ilaahi uu ku yiri fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat nabi muhammadow naftaada yeysan tagin dadka iyo gaalada dushooda adigoo u murugoonaya dartiisa tiiraayo darteeda naftaada yeysan u bixin fala'allaka baakhicun nafsaka ala aatharihim waxaad mudan tahayba naftaada inaad halaagto iimaan la'aantoodii dartiisa in naftaada aad u haligto murug dartiisa in naftaada aad u haligto ayaad halis u tahay xoogaa naftaada u dhimri yaa rasuulallah nabigeena sallallahu alayhi wasallam maalin ayaa uu bariistay isagoo naftiisu aad u faraxsan ummuna Aisha ayaa waxay ku tiri yaa rasuulallah ii duceey wuu u duceeyay wuxuu yiri allahumma ighfir li Aisha ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت اللهم اغفر لعائشة إله عائشة أدم بداف ما تقدم من ذنبها وما تأخر وحي ذنبك هذه هرمري وحي دمري بإله أداف وما أسرت وما أعلنت وحي سريستي وحي موجستي انت بإله أداف عائشة آد بأفرح ذي رضي الله تعالى عنها markaas nabi wuxuu ku yiri ma faraxday Aisha maxaan u farxi waayay ducadaadii maxaan ugu farxi waayay ya rasuulallah markaasuu ku yiri hadhihi da'wati li ummati fi kulli salah Allah hadhihi da'wati li ummati fi kulli salah كانتني ودعاءي أمتي أن أدعيه صلاة والبان أدعيه شنت صلاتات أنت كذب أمتي دعاء أنا أدعيه اللهم اغفر لأمتي ما تقدم من ذنبهم وما تأخر أمتي أيان دعاء مرول بأدعيه بل فير أمتي سسو أمرجاي عليه الصلاة والسلام نبي سيف تضاب كذا مركي قعنت أو لهره sidoo u dagaalamo ahad u dagaalami kari ma jirin oo geesi ah sifa kastaba ahad ugu sareeyay nabigeena ma jiro sallallahu alayhi wasallam wa in saara'a hadii uu la lagdama qeyrkiisa haday lagdin isu baxaana dallat al aqwiya wa xoog weynayaashii waa duloobayeen sharafta ka dhacaysay li ba'sihi inda ba'sihi nabiga baaskiisa agtiisa lagdamidiisa markuu la lagdamo xoog weyno ركان يزيد أولاد لك دم النبي هنا اسمه جفاء هاين أو ريهاشي معه ننحق وينها هايو ننعيش الله دقين واحد مركز سوير يا رسول الله مال لا اسمه هلال مال جلس كسر بحين لا بور نحدود مرايا ميبيحي كرتاور لك دم وحويري هدي أن كل لك دم يرمين يساوي هدي أنا كأت كاورنا عاد نقول كرديكو ما يرمين يسا فيري دعوة النبي وسيلة كستوكوفها فيه صلوات الله وسلامه عليه مريها اللي صدقت مرة كورا اللي صدقت قرطبة اللي سيري مكت إركاسا أنت لقيت كينيا مح نقول الجوسي
markaasuu yidhi mar labaad igu celi mar labaad tii tuka darna lagu dhuftay markaasuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah dallad liba'sihi alaqwiyaa xoog weyne kale oo maka joogi jiray oo ka sii darnaaya ninkaan reer haashimka ah oo nabiga isku jufada ahaayeen rukaana nin ka daran oo xoog weyne ah oo intuu muxuu ahay maqaar dibi maqaarkiisa intuu dhexda ugu istaago 10 nin uu dhihi jiray jiida haddii cagahayga dhulka aad ka dhaqaajisaan ninkiiba intaasuu leeyahay uu dhihi jiray waa laga dhaqaaji waay maqaarkii aa go'aaya ma ogiye lugihiisa dhulka lagama nuuxin karo ninkii nabi maxamed isku soo baxeen markaasuu yidhi legdan mii baxaysaa wuu yidhi maxamedow rasuulan ay waxbaad ku haysaa may rumaynaysaa wuu yidhi may rumaynaysaa haddii aan kaa badiyo maya rumaynta meel hanoo taalle wuxuu yidhi 100 ari aan ku siinayo wuu yidhi halkii haddaad ilagad wuxuu yidhi waa kuu baxaa wuu yidhi go'aa la soo dhigtay qurtubaa la siiyey cirkaa laga keenay wuxuu yidhi waa igu gaadaya mar labaad igu celi wuu yidhi tiito gordarna lagu dhuftay wuxuu yidhi bal saddexa noqotee 300 ari aan ku siinayo markii saddexaad waxaa lagu dhuftay mid uu la suuxay oo ka soo kici waayay meeshii la rabay inuu rumeeyo wuxuu yidhi inna sha'naka lacajiibun xaalkaaga mid la yaab badan waayo ee kaale saddexdii boqol oo arigeed iga soo maqoonso kaale iga soo wareegso yidhi arigaada war arigaadana ma rabnee naga socoyo haddaadan rumaynayn ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku yidhi annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim nabiga ayaa kaga owleysan mu'miniinta naftooda oo naftaada soo kaaga owleysan yahay wuxuu kaaga owleysan yahay naftaadu sharay ku fare meelo xumay kuu jiidee rasuulkuna khayru ku faraa janno kuu wadaa inna nafsa la amaaratun bisuu rabbigay qofka u naxariista maaha nafta xumaanay kuu jiidey marka nabiguna jannada iyo khayrka iyo ilaahay rumayntiisa noo wadaa naftayduna meelaha oo sharta iyo dhibaatada ay noo wadaa marka saas markuu ilaahay yiri sayid umar hadlay wuxuu yiri rasuulku ilaahay shay kasto waan ka jeclahay naftayda ma ahane marka saa leeyahay la ya umaru saas ma arinsaad u malaysa ma aha illa an naftaada iga jeclaatana ayaa leeyahay waa soo naqay sayid umar هذا وحكست نفتيد حتى واكا جعلهاي الآن يا عمر هذا واي أرنتو مرتبط هذا قارتي مرتبط نقل رب قاري مينو إلا أن نفتين أهل كين مال كين كجعلانو كلماتكو كلية كوما كومنين علماء الصومالي ذا بل سوحا مناسبة دانك آلد زوم كأوغا قيب قالي الدكتور المحدث محمد عجان الحديد الرفاعية الحسينية oo ka soo jeeda dalka Turkiga balse ku sugan magaalada Madiina ee dalka Sacuudi Carabiya halkaasi oo uu joogo cumro gudashada Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi haqqa hamdil hamidin wa shukru lillahi haqqa shukri shakirin Rabbah ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك اللهم من كنت معه فمن عليه ومن كنت عليه فمن معه اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بأمر الله القائل ما ضاقت إلا فرجها الله اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل مشتاق لرؤيته وارزقنا رؤيته في الدارين يا رب العالمين قال المولى تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إخوتي الأكارم يا أحباب سيدي رسول الله وطلاب فضيلة الشيخ العارف الكامل الورع سيدي عثمان حدك رحمه الله بارك الله فيكم نلتقي اليوم في ذكرى مولد خير البرية لنجدد العهد مع رسالته الخالدة رسالة العلم والهداية والرحمة لقد كان صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم معلما ومربيا أخرج الناس من الظلمات إلى النور وأقام أمة بالعلم والعمل والخلق الكريم أبعث إليكم هذه الكلمات من المدينة المنورة ومن جوار سيدي وجدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حاملا لكم المحبة والدعاء
أن يوفقكم الله للجد والاجتهاد، وأن يسير بكم على خطى الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في طلب العلم والتحلي بالأمانة والإخلاص وخدمة دينكم وأمتكم. وما هذه المناسبة المباركة إلا فرح بالحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم، ومن معانيها من فرح بنا فرحنا به، فاجعلوا أفراحكم بذكره دافعا للعمل بسنته والاقتداء بهديه. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يوفقكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلكم من حملة هذا النور المحمدي المبارك، وكل عام وأنتم في ربيع الأنوار بأتم صحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu dambayn munaasabada waxaa soo xiray hogaamiyaha guud ee jamaacatu Sheekh Daawud Culusow Sheekh Cabdi Fataax Sheekh Abubakar Sheekh Axmed Sheekh Daawud Culusow oo u mahad celiyay dhammaan intii ka soo qayb gashay munaasabadan. waxaan aad ugu mahad celiyaa dhalinyarada xafladan soo qaban qaabisay oo xarta masjidkan wax ka barata ah gabdho iyo wiilalba. hawl hadii qowsaarkeeru uu maqan yahay inay xoogay biyo keento amba xoogay inay sidii looga bartay ay naga weysa dhici jirta amba la maleeyaha. alxamdulillaah miska ogtii miska sheekhi waa maqan yahay sheekh Saadaq Cabad Allah siiyo dhalinyaradii isku hawsha mas'uuliyiinta mas'uulka ka ahaaday fakaanamo sheekhiyo jooga ee lamid tahay xafladu aysan xabad ka wadunayn fakaanamo sheekhiyo jooga ee lamid tahay way isku hawleen aad iyo aadan ugu mahad celinaynaa wax duldulaala iyo wax nuqsaanana alxamdulillaah xafladda noogama muuqataa joogna kor socod iyo wanaag iyo sharaf ay noogu dhamaatay. marka waa mahadsan yihiin dhalinyarta masjidka joogta oo sheekha mas'uul uga ah masjidka aadan ugu mahad celinaynaa. masjidu tawfiiq oo loo yaqaano masjidka macallin Dhiblaawe kana mid ah masaajida waaweyn ee hoostaga jamaacatu Sheekh Daawud Culusow waxaa sanad waliba lagu soo khatimaa munaasabadaha jamaacatu Sheekh Daawud Culusow ee xuska bisha Mawlid, waxaana xusid mudan in munaasabadan ay tahay mid taariikhaysan oo si weyn loo qorsheeyo isla mar ahaantaana qabaqaabiyaasha munaasabadu ay geliyaan juhdi badan si halkan mas'uuliyiinta culimaa u diinka waxgaradka iyo marti sharafta ka soo qaybgalaysa ay ugu qaataan farxadooda si dhameystiran. Cumar Dhiblaawe, Muqdisho.